xilli ay soo badanayaan kufsiyada deegaanada Puntland ayaa waalidka gabadhan yar oo lagu magacaabo Hodan Axmed Daahir ay noo sheegeen in gabadhooda Khamiistii aan ka soo gudubnay lagu kufsaday deegaanka Jalam ee gobolka Nugaal. Aisha Ahmed Ismaan oo ayeeyo u ah gabadha yar ee la kufsaday iyo Axmed Daahir Shombe oo ah aabaha dhalay gabadha ayaa ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen waxayna dawladda ku codsadeen inay cadaalad hor keento kuwa dambigan geystay. way qarsanaysa galinkiisi dambe waliba baan ka warhelay galin karo kamaan warhelin anigu dugsi baan u dirsaday ana ayeedeeda dugsi baan u diray dugsigii macallinkii bay ka baqday dib bay u soo noqotay markay dib u soo noqotay gurigiina inay soo gaadeen dugsigiina ay ka soo tagtay ayaa dib baa wiilashaan helay meeshaas ay ku farxumeeyeen muxuu ahaa wiilasha gabadhii way qarsatay waxay yiraahdaan sheegtid sida Aisho ayaan ta ku jarjarno jawaan kugu gorayn gabar baan waxaan ku yiri yar naawada oo qubeeday taqtarkan geynaya gabadhaas aragtay marka ingriya oo guda baan u yeero waxaan nabad gabadha ila arag bay fishin ba waxay ku tir gabadhan waa la isticmaalay ilaa muddo hal saac ku dhow ayaan gabadha ka bariyeynay inay qofka sheegto wax yeelay sabab qof leeyahay gudilayahay muxuu yahay waxay ogolaatay markii dambe inay noo sheegto hal wiil bayna noo sheegtay laba wiil bay ahaayeen way isla ekaayeen bay tir iyaga ka hadlayay laakiin anigu gabadha meel walba ana la gelayay markii la baarayay warqadaheedina waa la hayaa 3 iyo 4 warqad oo baarina laga qor garowal burtina laba meelood baa laga baaray garowgana laba meelood baa laga baaray wixii cadayna waa la hayaa dawladda waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabato dhibaatada maalin taagan laakiin anaga wax nagala qabata ilmaha iyadoo saqiibka oo sabiga ah waxna aan loo qirsanay inay dawladda taasan ka codsanayno waxaan dareemayaa xanuun weyn in liis iyo 7 jir oo aad garanaysaan leeyiri laba nin baa isaga digay oo labadii nin awooddaas aan qaadan karin waa dareemi kartaa qof kasta bilaadan uu dareemi karaa marka gabadha yar taadiga lagu sameeyay wax hore u dhacay maaha waa wax ugu buuyay wax laga xanuunsado dinba wala dareemi kartaan aabe ama hooyo macnaa waxa ilmaha yaranta loo geysanayo oo ugu hadana marka waxaan dareemayaa xanuun baan dareemayaa aada oo waliba aadii saameynaya nafsadayda iyo dareenkayga intaba saameynaya waxaan ku qancin karaa sharciga islaamka oo naloo saaro ninkaas dhinaca kale dhakhaatiirtii gabadhan baaritaanka ku sameeyay ayaa SBC u xaqiijiyay in gabadhan yar loo galmooday maxamed saalax SBC Garowe.